السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi ama hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamus. Hadalka wanaagsan meel walba ayuu galaa. Inaad hadal wanaagsan tahay waxay kaa dhigtaa qof la jecel yahay oo ahlu khayr. Laakiin dhalinteena waxaa ku badan warxumada. Macnaha hooyo ayuu wax xun dhahayaa, qofka wax xun ayuu dhahayaa, adiga si xun ayuu hadlayaa. meel walba uu joogana sida ayuu hadlayaa. xitaa masaajidka Allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu hadlayaa. dhalinyaro aan ilaahay ka xishoono, iska daa cayda, iska daa waxa xun, waayo waxaad weynaysaa sharaftaada, cisidaada iyo karaamadaada. waxaana wax ka sheegaysaa waalidkii ku dhalay. haddana meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay masaajida kuma sii jiraan. inaad waxan ku sheegto iska daayo, inaad qaylo yar muujiso xitaa lama ogola. aan ilaahay ka